waayahay intaasi haddaynu kaga nimaadno faallo guud iyo arartii barnaamijka iyo inay abwaanadu ay faallo inaga siiyaan xaggooda barnaamijku wuxuu isugu jiraa dhinaca maansooyinka iyo sugaanta kala duwan ee ay abwaanadu hal abuureen waxaa qaybta ugu muhiimsan si aynu ku eegi doonaa heesaha soo baxay ee ay abwaanadu leeyihiin muxiidiin rag badani caawa heesa inuu sameeyo yaabbay ku noqon doontaayo heesihiisa inayna qaar badan arag baa dhici karta mabaarig baan ku horreyn doonaa dhanka maansooyinka mabaarig cabdi yuusufow abwaan ku soo dhowow maansada magaceeda la idhahdo faallo bal maansadaa naga dabagee mawduuca la faallaynayo halka ay daaran tahay soo dhowow abwaan waa hagaag cabdiraxmaan aad ayaad u mahadsan tahay mar kale in kulley markaad sheegto faallo waxaa la dareemayaa in wax la falanqaynayo waa run oo maansadani waa sidaasi oo waa faallo iyo falanqayn laakiin faalladii warka maaha inta badan barateen warka dabadii in la akhriyo oo mid ka mid a qodobadii warku ku saabsanaa kooda ugu lixaadka culus uu qof khabiir ku ahi uu sidii in ka ballaadhan inoogu fasirayo tani waxa ay faallaynaysaa maansadani wacyiga lagu jiro iyo xilliga lagu jiro iyo isbedelada cusub ee aan hore u jirin imika bulshada ku soo kordhay ee u baahan in la toosiyo waxay u badan tahay oo ay aad uga hadlaysaa oo si guud mar markaa loo eego ay uga hadlaysaa dhaqangadiska isbedelada dhanka dhaqan ee bulshada ku yimid dhanka aragtiyaha oo iyana aad mooddo meelaha qaar inay wax iska bedeleen oo tusaale ahaan qofka sharciga ilaaliya ee ku adag mararka qaar aad arkayso qaar ka jecelba ka dantiisa gaarka ah ka fushada qofka runsheegga ah in beenaalaha laga jeclaado qofka daacadda ah in qofka daalinka ah laga jeclaado qofka qabyaaladda fala in laga jeclaado oo laga xiiseeyo kii qarannimada ku adkaa isbedeladaasi oo dhan ayay ka hadlaysaa bulshada inta badan waxaa kaalinta wacyigelinta iyo u qaabilsan hanuuninta culimmada iyo bahda warbaahinta ha noqoto qaybta fanaaniinta iyo sugaanyahanka amase qaybta saxaafadda innaga waxaad mooddaa in kaalmahaasi iminka ay aad gaabis u yihiin oo culimmadiina ay jirto dagaal iyaga dhexdooda iyo fikradaha ku kala duwan yihiin firqadaha iyo arrimo noocaasa dabeedna qofkii siduu u qaato fariintooda ay adkaanayso oonu kala garanayn inuu qoladii qaldanayd yahay iyo inuu qoladii qumanayd uu yahay maadaama qofku aanu aqoon badan oo xagga diiniya aanu lahayn qaybta wacyigelinta ee warbaahinta iyo qaybta fankana kulli xaalkooda waa la socotaan oo iyada saxaafaddu waa meelaha dhibaatada ugu badaniba ay ka jiraan isbeddelka badani uu ku yimid fanka laftigiisuna waa ogtiinoo marka hore waa muraayad la yska daawado oo wanaagsan bulshadu kolba sida ay tahay u gudbisa laakiin haddii muraayadda iyada laftigeedii iima yeelato dee isticmaalkeedii ma jirayo qofkuna waxa uu sheegayo ummadda uu ka wacyigelinayo haddii isagiiba uu ku dhaqmo oo uu leeyahay sida looga qaataa way adkaanaysa innagu fanku ilaa wakhtigii uu aadka u xoogaystay waxa uu ku tilmaanaa uun meel isagiiba u baahan wacyigelin taasina ha noqoto mid jirta iyo mid aan jirinbe waxaad mooddaa iminka in taasina xoogu sii yaro xoogaysatay dabadeedna dee fariintii sida ay u gudubtaaba ay adkaanayso haddaba sidee isbedeladaas dhaqan ee yimid ee u baahan in wax laga qabto loo hagaajin karaa amuurahaasi ayaa marka dambena ay ku soo xilmaysa iyo su'aalo la halmaala aan idiin bilaabo haddaba maansadu waxay odhanaysaa falagga meeree wakhtiga fasalka waagee xilliga fahamka bulshee wacyiga farqiga isbedeladooda haddaan falanqayno xaalka u fiirsada maanta taagan
dhaqankiyo hiddaha fiican kow feejigan baan durnaa farriimaha gaaladana ka faafinayaan bidnaa bulshada kii fara wanaag fartaa lagu wada godaa fidmada kii beerayana fariid baa loo arkaa dadkana ruux feero dheer fallaagaa loo yaqaan midaan ku filnayn waxbana fagaaraan joojinnaa waddanigii feejignaa fulaa lagu sheegayaa madhaadaha foorarana haliyey baa loo fishaa waa ruuxii muwaadinka ahaa sharciga kii fulin lahaa laaluush baa loo fidshaa caddaaladda kii falana dadkeennii kuma farxaan ninkii faraqiisu buuxo markhaataa loo furaa faqiiraan xoola haysan gartaa lagu furarshaa dulmiya kii fala qabyaalad dadka u wada fooladeeya ninkii ka fogaana eexna inta u xigtabaa faquuqda xumaanta ninkii faqfaqa ayay dadku faanayaan ninkii fidmo baajiyana ficillaa wuu noqdaa waxaan la filaynin iyo fallaadhibo waa naxdine fantaa runta loo yaqaan beentaa lagu faraxsan yahay fagaaroo laga hadlana faqaa laga doorbidaa danaystuhu waa u fariid faaliyuhu waa u sheekh qabyaaladdu waa u faral qoloba ugu faanto qolo qarannimadii la fudud fusuqaylbaxnimadu sidoo bulshada ugu sii dhex faafay aroor lama foof tagee fiidkaa shaqo loo kacaa jinkaa fay lala galaa dukaannaha habeenkii furan dharaartii fasax ku jira sidii oo lagu falay bulshadii yuutubka iyo facebooka ku foorartaa waxgarad tala fiican iyo waayeelku siduuna faro dhagaha ka furaysanno waxaan fursadda u hurnaa doodaan dhalin faa'iidiyo falanqayn siyaasadeed lamood qurux foolxumoo ma feedhaan wiilashii food dheeroo lala bixiyo dharaan ku filnayn jidhkay u haystaan faashiyoon ficil kastoo ay rabeen haween fasax looga dhige wadaaddadii kala fiqiyo fariiqay kala noqdeen dadkana kala faagashiyo waxay ku fureen tashuush fankii wicigelinta iyo farriimaha toosintiiyo wanaagguun fidini jiray faratiris baa ka hadhay faynuskiisii daciif farshaxanka abwaanka iyo fannaan magaciisii dhimay dad baa si kaloo fasiray fasahaad laga durkiyo fawaaxish dar baa ka dhigay haddaba faalleeya oo bulshadan fahamkeedii lumay facoodii kacay ambaday filkiyo qayrkood ka hadhay hadmay xor u fikirayaan dantiisa si uu u fushado gumaystaha kala furfura dadkeennana kala fadila garaadka fayow tirtira maankeenna fadhiid ka dhiga farsamadeen kaga baxnaa cudurka fardaha galee dameer farow laga gubaa fayoobi ma keenaysaa hangoolka farraarihiiyo gantadiisii kala fogtae midiba figta geed ku yaal fajiciyo yaab kan dhacay sidaynu furdaaminaa waa su'aal kullay taagan